Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay xukun ku riday nin loo haystay weerar lagu qaaday 26 bishii 11aad ee sanadkii 2018 xarun uu magaalada Gaalkacyo ku lahaa wadaad lagu magacaabi jiray Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare. Gudoomiyaha Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shooto oo dhageysiga kiiskan u tagay magaalada Gaalkacyo ayaana ku dhawaaqay xukunka dilka ah ee lagu riday Cabdullaahi Cali Aadan. Xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada ayaana sheegtay in ninkaasi uu Al-Shabaab kaga biiray degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay, isla markaana uu ka qayb qaatay weeraro iyo dilal loo geystay askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. Weerarkan xarunta Cabdiweli Cali Cilmi Yare ayaana waxa uu dhacay 26 November 2018 waxaana Al-Shabaab oo weerarkaasi sheegatay mas'uuliyadiisii ku dooday in Cabdiweli Cali Cilmi Yare uu nebinimo sheegtay, inkastoo sheekhana uu arrintaasi beeniyay mar uu wareysi siiyay idaacadda BBC-da ka hor dhimashadiisii. Wadaadkan ayaana dhanka kale caan ku ahaa inta badan soo bandhigidda kalimo suugaaneed oo lagu laray salliga nebiga, taasoo ay qaadayeen dhalinyaro isugu jirto hablo iyo wiilal, kuwaasi oo astaan u ahaa xilliyada ay qaadayaan qoobka ciyaar oo uu qayb ka ahaa wadaadkaasi lafahantiisa. Ninkan ka tirsan kooxdii weerarka ku soo qaaday xaruntaasi ayaana qirtay inuu gacantiisii ku dilay mid ka mid ah ciidamada gaarka ah ee dowladda oo halkaasi u tagay sidii loo soo badbaadin lahaa dadkii ku go'doomay weerarkaasi.